الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد maanta way taariikhdu tahay bishii sagaalaad shanteedii 2012 taariikhda hijrigana ka noqonaysa 18 shawaal 1433 goobtuna ay tahay magaalada Ceergaabo khaasatan iskuulka Safa. waxaanu halkan ku guddoonsiinaynaa maamulka iskuulka lacag ururka magaciisu uu yahay Somali Development Association ama Soomaali ahaan noqonaysa hay'adda taakulaynta iyo horumarinta ururka oo runtii aanu ma garanaysaa u soo ururiyay lacag qadarkeedu dhan yahay $2,030 oo ay ugu tala galeen inay kaga qayb qaataan iskuulka ma garanaysaa dhismaha hadda soconaya ee qabyada ah inay ma garanaysaa hawshaas ay kaga qayb qaataan. haddana aan rajaynayo inaan ku wareejin doono maamulka iskuulka sidaa awgeed ma jecli inaan sii dheereeyo. waxaan rabaa markaa kelmad la yiraahdo Sheekh Xuseen Jablibaax kusoo dhawo Sheekh Xuseen. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إله بهم هذا وحن مهد علينا ولا وكور رمي ليس عبد علي قدح يصور رسالة عكسة أن يقول لك سكول كان قبيضة صفا إن لقول بيصفوا ويكجع قيبقاتان بعد مركان مهد علينا أنا وين واحد كأ أهيسيي إني حوشة أي كلام waxaanu ku mahadcelinaynaa sawirada ay sawiraya lacagtaas si iskuulka loogu qabiyo tiro ardayda reer Ceergaabo ay ka faa'iideysanayaan insha Allah ta'ala waxaanu leenahay cid kasta oo ka qayb qaadata oo kuwa ku darsanto ku biirtana sidaas oo kale waxaanu leenahay Allah ha barakeeyo kuwan hadda lacagta soo diray iyo kuwii ka dambeeyay iyo kuwii hore u soo dirayba wassalaamu alaykum. أنا حسن عرب إسماعيل معمل كحجينك صفة سكندري سكول صفة سكندري أم بريمري سكول مقالة عرقاوي كياله وحنك قدومي كيسة عبد على قضاء العقدا لبكن $100 وصادر يقولك اللي يلاحظه سرادو from Somali Relief and Development Organization هيدا تاكلين تيجي برمجة الصومالية marka hay'adaas kusoo wakiilatay kiise si sharaf leh oo maartay amaana leh ayuu noo soo gaarsiiyay lacagtiina waa taas aad aragtaan shaqadiina waa taas socota oo waxa weeye lagu wado halkan marka waxaad weydeen horena codsiga iyagu iyo soo gaaray iyo warbixinta iyada marka aanu sanad dugsiyeedka dhamaadkiisii taqriiban bishii lixaad aanu bilownay dhismo kordhin iskuulka Safa oo ka koobnaa 5 fasal aanu ku kordhinay 3 fasal saddexda fasal oo xagga ka soo jeeda oo dhisayaan hay'adda la yiraahdo SSDO oo Denmark xarunteedu tahay خير الله سيو صحيح لا فصل إياها بلن قاضي إياها نبلابي إياها نبلن قاضي إنه ميستريان إياها نكسو إن شاء الله تعالى تني صور ميستران سي بلن صحيح والدين تا إيو بديها سكولك وحييقون أهل قلين لما فصل يلما حفيز فصل كا ولي تشين قد كم غنتهاي جيسكا فصل كا جيسكا يفصل كان يلما حفيز حفيز iyo labada fasal waxa u hawl galay
waalidiinta iyo guddiga waalidiinta iyo khusuusan ururka la yidhaahdo Sanaag Civil Society Organization iyaguna waxay ururkaas runtii wuxuu naga mudan yahay ammaan gaara iyo mahadnaq gaara waa ururkii koowaad fundraising ugu horreeyay $1,500 iskuulka ku deeqa dadkuna ay ku dhiiradeen shaarlahaas iyo $1,500 iyo $500 waalidiintu ay ku labada kumaan ku bilownay maantana waad arkaysaa meesha ay marayso waqtiga la bilaabana waqti kooban marka alxamdulillah ururkan salaado way mahadsan yihiin oo Birmingham baan filayaa inuu yahay xarintoodu waxaan jazakumullahu khayr Somali Relief and Development Organization ururka taakuleynta iyo horumarka Soomaaliya waxaan idinku leeyahay jazakumullahu khayran dee halkaa ka sii wada iskuulkii baahidiisa waa taagan tahay waad u jeedaan sanadkan waa sanadkii ugu iqbaal badnaa oo ardaydu ay aad iyo aad runtii noogu yimaadeen secondaryga hadda ilaa 4 fasal ayaa ay ardaydu isdiiwaan garaysay ilaa 1 ilaa 8na waa awalba waa diyaar bay ahaayeen marka kulley waxaanu aad ugu rajo weynahay sabtidaba waxaa loo ballansanyay ardaydu inay waxbarashada toosi bilaabaan marka kulley insha allahu tacaala dee anigu waa iska bilaabaynaa xitaa haddii fasallada aan wax kala ogeyn dee waxay noqonaysaa inaanu bac roobka ka xijinno iyo qorraxda oo sidii lagu wadi karo in waxbarashadii aan istaagin ayay noqonaysaa marka waxaan leenahay jazakumullahu khayran ciddii hore ka qayb qaadatay safa hawsheedana kulliba waxaanu leeyahay jazakumullahu khayran inta kale fariintayda gaadhona waxaanu leenahay baahidii dee waa halkeedii iskuulku deer weyn buu u baahan yahay waa boqol mitir oo isku weera kulle deerkaasi waxa weeyaan isaguna waa mashruuc kale oo ku xigi doona laakiin hadda baahida taagan waxa weeye dhamaystirka 3 fasal 5 fasal iyo 2 xafiis jazakumullahu khayran assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh shaqada waanu wadnaa halkan waa fasal insha Allah taala shaqadii way socotaa fasalkan waxaan filaynaa inuu isagu dhaxsaba u diyaar garoobo ilaa inta insha Allah taala wadu jeeda shaqadii waa ku socotaa halkan hadda waa laba halkan waa xafiiskii macallimiinta isagana shaqadii way ku socotaa si fiican bay u socotaa ma sha Allah شكرا ديار هاي كان وحفيزكي ها يعني وحفيزكي ماملها حفيزكي ماملها واحد هذا التلبيس في مصر دماطي حق المقابلين عكتا يا إن شاء الله كيف يقدرون إلى هذا إن شاء الله تعالى شنتم فصل شنتي فصل هراء اسكولك شنتي فصل lagu bilaabay waxa dhistay hay'adda la yiraahdo manhal waxaana fuliyay ilaahay naxariista injineer Saciid Cabdi ayaa laha fulinta oo runtii si dhiseen fiican oo runtii aad dhaxal gal ilaahay khayr siiyo jazakallahu khayran isaga maartay kontaraaga qaatay oo waxa fuliyay SVO oo marka gudoomiyaheeda ahaa injineer Saciid Cabdi ilaahay naxariista shanta fasal iyo laba xafiis oo arkaysaan walka ka soo jeeda
واسمه قديم كهاي حرق اللي بكون يلحدي اللي قبل بلعب سكول كله قفري 2006 فصل كان وفصل في أنا قبل وأنا مشروعة كوردينتا سكول كصفاء كنت وفصل حسوس قارة له فصل كان واحد بلعبي والدين أو بدنا يعني هوينك أو يوي فرد كان الله فيه $7 $5 يعني بقول كنا الصومالية بالغوا بلعب قف كستويح أودي ساها هذا إن شاء الله تعالى وذاك كان تاجي هاي ورحلتي أروح أو حريو حويه قرقة يشين كذا يوشي داخله يسير كين تاس كل القيمين تستقبل مستوينا والهلية لوضع فصلنا والله بدي فصل أنا كسي بلوني دكسي كسرة وهدر إلى أفر فصل مقضي أنا مثلا كسي بلوني لوضع فصل لو اسمه هذا قديم كها أي فلسطين هذا المنهل قدوميها كي عبد الواحد حاشي خير الله سيو كلن كذا أنا الحين اس في او مركا ونورا جنة سعيد وعبد الله بن حريصة صدح ذا فصل وصدح ذا فصل يسوع دسين ويبلغين هل كسو قرسيين الأوركا اللي يلاحظه SSDO صور سناك development organization oo fadhigoodu yahay Denmark wadanka Denmark marka iyaguna insha Allah taala waxaan filaynaa inay space ka dambe ee dhameystirka inay soo dhameystirayaan hadii Ilaahay ka dhigo kulli sabcilinta iyo warbixintiisana waa loo gudbiyay oo waxa way haystaan waxa lagu diray email-adooda iyo ciwaankooda lagu diray warbixinta dhameystiran way haystaan iyagana insha Allah waxaan ka filaynaa inta hore jazakumullahu khairan intaana inay si dhaqso ah way fasalada aan doonayno inay dugsiga sare inta tan ay shanta fasal isku xiga in qaybta dugsiga sare ay ku dhigtaan insha Allah sanadka ay ku bilaabaan oo waxbarashaduna waxay bilaaban doontaa si rasmi ah maalinta sabtida ee bisha ay tahay waxa weeyaan waa qabiyo mid laba fasal iyo laba xafiisna waxa dhisaya waalidiinta hadeera gacanta lagu haya marka iskuulka kan wuxuu u baahan yahay waxa weeyaan magaaladii waa weynaatay waa ballaaratay halkan aynu hadda taaganahay iskuulka kan oo magaaladu wali ay xagga naga sii xigto koonfureed in badan iskuulka ku yaala eedka wuxuu maanta deer inoo jiraa ilaa 7 kilomitir waad garanaysaa marka waxa weeye baahida timi waxa weeye in aan caruurta hadda naga sii xigto koonfurnaali gaari kariyada oo reer ceergaaba number 1 waxaan la hadlaynaa horta wixii deegaanka kan waxaan leenahay iskuulkan wixii ka dhiman in la dhameystiro baan codsanaynaa nin waliba wixii uu ka bixin karo inuu ku tirsado waayo waxaad arkaysaan halkan aan taaganahay horta iyada sees weyn baa waxa weeyaan waa dhowr waa 3 fasal oo kale oo kuwa kan oo kale ah oo hadda seesan dhul aad u bannaan weeye wuxuu ku soo tirsado waxaan u baaqaynaa xataa ajnabiga kale ee muslimka ah wixii ay ku tirsan karayaan inay ku tirsadaan waxa weeyaan waa caruura loogu adeegaya dad liita loogu adeegaya maaha meel faa'iido kama rabno lacag ka qaadan mayno waxa weeyaan dadka liita ee aan gaarayn dhulka in loogu adeego ayaan ka codsanaynaa inay lacagtooda geliyaan saasaan ku codsanaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wixii ka dambeeyay wadiyadan baa بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد waxaanu joognaa iskuulka ku yaala meel weyn oo waxna dhisan yihiin waxna aan dhisnayn wuxuu u baahan yahay waxqabad badan intaa odaygu yiri Arab Ismaaciil waanu isku raacsanahay in iskuulka la taageero sooda hoose ku yaala sooda hoose ummad badan baa taala ummaddu de ma kala socona iskuulka nin dheer iyo nin dhowba iyo wax laga qabto inta aanu codsanaynaa intaa weyn السلام عليكم arrintan aanu ka hadlaynaa oo odayaashu hadda ay ka hadleen waa arrin muxuu ahaay arrimaha bulshada ah waana arrin khayriyad ah oo faa'iido badani ay ku jirto waxbarashadii baa ku jirta waxa ku jira muxuu ahaayey xagga caafimaadka waxa ku jira xagga biyaha marka
arrintaas muxuu ahaayey arrimaha bulshada ah ee khayriyadda ah ee faa'iido badani ay ku jirto waanu idiin sheegnay nin walibana wuu garanayaa faa'iidada ay leedahay iyo waxtarka ay leedahay mitir oo isku weera ilaa halka kan ilaahay maadisuulka ayaa iskala bixiyay dhulkan aad u jeedaan ilaa feerkan kan laga bilaabo halkan aynu joogno waa seeskii dhinaca bari iskuulka halkan waddaa martay weyn waddada highwayga marta docda galbeedkan waxaa ka marta waddo docda waqooyiga waxaa ka marta waddo docdana waxaa ka marta waddo halkaas waa masaajidkii mashruucii hore la socotay hay-adda manhal iyo wada fuliyeen hay-adda s v o masaajidka masjid safa isagana masaajidka iskuulka ku dhex yaalla ardayda ku tukata masquulihii waa kuwaas halkan lafteeda waxaa ka xiga masaajid kale oo ay dhistay gabadh maxaan ku rahaa iyaduna maaragtay iyaduna deegaanka khayr allaha siiyo oo qolada jaaliyadda maraykana mashruuca gabadh baa fulisay masaajidka iyo malcaamado iyo qaybtaas xagga aad ka muuqata marka insha allahu tacaala waxaynu rajeynaynaa meesha tan dhulka weyn haddii alla mustaqbalka inay noqoto xitaa jaamacad insha allah safa university ayaa laga dhisi karaa xitaa macaahid baa laga dhisi karaa horumarinta iyo wax kasta iyo maaragtay